asxaabta waan idin salaamaya iyo meel kasta dunida ka joogtaan oo bal barnaamijkeeni waqtiga kan iyo waxyaabaha jira baan wax ka siin doonaa iyo ciyaarihii soo dhamaaday waar nimankii Liverpool baan soo arkay walla mucaarado waxaan idin leeyahay wareer Manchester United wareer Chelsea war City Arsenal iyo kooxii kale war nimanka Liverpool aan soo arkay maanta waan ka yaabay nimankaas meel ay u socdaan nimankan sanadkan shaqo ka go'an Van Dijk oo ciyaaraya Liverpool u dhawaan karayah Allah Alisson sidoo ku soo laabtay darkii lahayd waariya haymaani miyaad aragtay still Jota wala laga yaabay waxaan soo qaadan doonaa kala iibsigii Real Madrid was serious Real Madrid waxay xilli ciyaareedkan inta uu dhiman kala iibsigu kala wareegi doontaa ciyaartooyga Kylian Mbappe xaaladda Harry Kane iyo kuwa kale ayaan soo qaadan doonaayo asxaabta subscribe-ka noo saar ku channel-ka cusub halka ugu jiray share tilagtan isku dir kana asxaabta kale ciyaar u jecel bal barnaamijkan u gaara soo gudbinta barnaamijkeenu waxaa ka qayb qaadanaya Askunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynayan wax ku barto wadanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo dhawow shirkadda Askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garowe Gaalkacyo Beledweyne Jowhar Baydhabo iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askunicom ka dhigo Askunicom wehelkaaga Turkiga war asxaabta walidi salaamaya waa maalin kamal daariyeed kulay waxyaabaha dhiman dib baan ka soo cimaamadi doonaayo Liverpool baan in cimaamada ugu tala galay iyo warkii waqtiga kan macnuhu waxa weeyaan warkeennii habeenimo ayaan eegi doonaayo maxaa yeelay ayaantan kala iibsi baan nahayo marka ciyaaraha kale dib baan ka soo cimaamadaynaa balse wararka waqtigan uu jiray kamal daariga iyo kala iibsigu ciyaartoogu ayaan eegi doonaa goor dhawe war Liverpool maartay galabta war laba gool bay ku badiyaan nimankaas aanu marnaan idin sheegay nimankaas sanadkan shaqa ka go'an balay helayash dib ay isu helan ya nimankaas balay helayaal waa nimanka hadda kor ugu kalifay gambarkayna iska tiiriyo kooxu kale marka qaar ugu adkeyn karaa mugtahay markaad u fariisato oo ku adkeyn kartaa oo yaani kooxii kale ku kufayaan nimanka sanad dhaweyd berigay Liverpool ahayd sanadka la soo dhaafay ka jabsaneed mooyaane oo dhaawac u galay sanad kasta dhaawac nimanka meel u maray mooyaane nimankaas oo caafimaad qabo man iska celin karo ma laga qaban karayo marka nimanka kan sanad dhaweyd waxay ugu kalifeen gambarkayga iska tireen raado war Liverpool wax laga qaban karayo ka shukaas doonta saas warkeen aan jiray waxaan dhihi jiray Liverpool war wax ma laga qaban karaye war hal laga shukaasi doonto oo hal laga shaar cadeysto oo hal laga shaah doonto oo hal laga brondi doonto duurka laga gala kala cida wax laga qaban karaye alay xaalse sanadkan sidii u muuqanayaan laba gool iyo bay ku badiyeen galabta Diego Jota gool wareeni kan caadi ma ahane imaamad waa Diego gool hooyan tawbara xogaa hatta wiilkan kurkuraya mooyaane ya ninkan qatar badan waa markuu bedelay halin asiga firmi isku bedela labadaas nin cajis ma loo dhawaan karo kala buu fahmo wuxuu ilma Afrikaan isku taabo karo sir macnaa ilma Afrikaan waxa way hore ka caroonayaan maxamed salax dhowr mar la bedelay gafuurku taagay waa carooday kolobkii marada kariday maana ugu darna hatta macalinku salaanta waa ka diiday marka kolob had markuu soo gelinay waa quslay markaan arkayay markuu soo gelinayay Firmino waxaan riyay ninkan iska dhaafa galab Diego Jota gool u dhaliyay isaga cimaamad cunuga maalin kasta muxuu kurkuraya ya Firmino hatta uu jeclaan jiray keedo ku jira ayaantan Diego ka fiican هاي لكن لبدان اسكو بدليا مروحان الله يا مماني مقربته مانا المركان لو قاطو على غفورس وتاغلد اركي لهدا الله كل اركاس اي جيني دراد غعنتو غادي way waxaan maleen marka in salaam uu yiri macna gabi ahaan binaan isnaafno marka labadan ajab waxa weeyaan horta labada ajab waxa weeyaan waa waxbay hayaan hool bay hayaan ya labadan sama yareystaan marka laakiin dabeecadda ka dhuntay yaa waxaan u dhigi jirtay waar dabeecaddu maxaa ka arday yaani dabeecadda maxaa ka xumay marka labadan wiil muddo waa kare labada cad isku bedelayaan labadaas waxa weeyaan ajab waa ilma ajab yiri macnaha kolba dhaqankooda waa yaqaan ilma Afrikaan waraawo inay qaban uu ogaayay kolob marka Liverpool laba ku badisay maanina gool kalaad buu dhaliyay Jawtana ka hor ciyaartu buu dhaliyay runtii Liverpool mar runtii aan waan ka yaabanahay Sadio Mane maana dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay Premier League ee xilli ciyaareedkan waa bilaabay haduu Salah isbuucii hore dhaliyay kan gool buu dhaliyay Salahna dabiicadiis waa taqaana waxa lagu yiri isbuuc kood buu gool ku furto isbuuc labaad wiilkiis ma dhalin jirin gool soo hadda wuxuu gaaray Salah sanad maalin wuxuu gaaray waa ninka 5 sano isku xiga ama 5 xilli ciyaareed xiriir ah toddobaadka ugu horeeyay gool dhalinaya weeyaan Premier League laakiin isagu wuxuu ku ciibaysnaa 4 sano ugu dambeeyay ku darkan maanta 5 sano ugu dambeeyay ee uu 5 sano oo hadda yaani isagu toddobaadka ugu horeeyay gool furanayo ya kulanka labaad gool ma dhalin jiray isaga waa lagu yaqaana
haddaba maani goolka suulay furtay sida kale waxaan ku dhaliyay goolkiisii 96 ee Premier League haddaba waxaa jira ciyaartoy Afrikaan ah oo tiro yar baa jira oo Premier League ka dhaliyay gool badan Drogba oo ka dhaliyay Premier League 104 gool Mohamed Salah oo dhaliyay 98 gool Mo laba gool buu baahayay si uu 100 gool u gaaro Premier League Emmanuel Adebayor oo dhaliyay 97 gool iyo Sadio Mane oo dhaliyay 96 gool Yakubu ayaa isna dhaliyay laacib uu hayaa qaninka gaaban 95 gool isagoo dhaliyay runtii Mane marka runtii 4 gool buu jiraa inuu goolkiisa boqolaad Premier League u gaaro waan arki doonaa Mohamed Salah laba buu jiraa 100 gool Premier League u gaaro Mane 4 buu jiraa labadan wiil cajabtu waxa weeyaan qatar weeyaan midda kale Sadio Mane wuxuu noqday ciyaaryahankii shanaad Liverpool oo 50 gool Premier League kaga dhaliya ama Liverpool ugu dhaliya Anfield hore waxa uu sameeyay Robbie Fowler Steven Gerrard Michael Owen iyo Mohamed Salah asagu waa ninkii shanaad maxaa Anfield ku dhaliya 50 gool oo horyaalka kaliya ah midda kale ma jiro difaac ka caawin badan Alexander Arnold Premier League tan xagee la soo dhaafay oo wuxuu caawiyay 8 gool ninkan lugtiisa waa la saaran yahay sanadkii la soo dhaafay xoogaa in tagtaag ku jiray xoogaa marada ka dhaceysay laakiin sanadkan fit buu muuqanaya waliba tan iyo 2019 marka la fiiriyo waxa ciyaaryahanada caawinta ugu badan Premier League ka sameeyeen De Bruyne oo sameeyay 4 caawin Arnold mujida 3 caawin buu sameeyay De Bruyne baa hal caawin dheer waa xilli ciyaareedkii 2019 marka laga soo bilaabo waraga ugu caawinta badan EPL ka wayaan marka Arnold عمد كتوروا وصبت له ليه وكافو ير كيفين دي برونيا صدني أفر جول بوعوي أرنولد صدني سدح أن روبرتسون صدن جول سون لباتي لح جول محمد صلاح شلات جول بسمو عوي ورقوا عويد بدنا بريمير ليج تاني حلقة كاويانو من ذاك أرنولد سجل جول أيو كعوي سيدو ماني بريمير ليج afar ayuu ka badan yahay ciyaartooyga kale yaani inta goolish ugu badan ninka Liverpool goolish ugu badan ka caawiyo waa Sadio Mane ninka la yiraahdo Alexander Arnold midda kale Diego Jota todobadii ciyaar la soo dhaafay Premier League Liverpool gool ugu dhaliyay wuxuu ku soo dhalinayay dhammaan banaanka marka laga reebo maanta uu ku dhaliyay guriga kooxda Liverpool ee Anfield macnuhu wuxuu sugayay runtii Anfield oo taageerayaasha ku soo laabta 18 bilood kadibna jabahirta Liverpool ayaan filmaanta ku soo laabtay maxay bilaabay taqana wallahi taageerayaashii qaylada badnaa soo laabtay nafta waxay kaaga qaadayaan yobeelada boolka ibaadada ku waalayaan wallahi garoonkii wuxuu u muuqanayaa kii laga cabsanay malaha nimankan sanadka burhaantooda wuxuu burburtay ma taqana jabahir la'aan baa qabatay nimankan runtii jabahirtii soo laabtay wallahi Anfield wuxuu u muuqan doonaa meel laga kala cabsado uu dib ugu muuqan doonaayo jabahirtii qaylada badnaa baa dib ugu soo laabtay midda kale Diego Jota afartii ciyaar la soo dhaafay saddex kamid ah gool ayuu u dhalinayay Liverpool waliba waa kii ugu horeeyay Liverpool ugu dhalinayay Anfield tan iyo November 2020 midda kale Liverpool waa unbeaten midda kale Liverpool oo gool ku hormarta qaybta hore ciyaarta haka filin in looga badiyo Anfield hadda waa unbeaten Liverpool 116 ciyaarood Premier League oo Liverpool Anfield ay ku hogaamisay gool qaybta koowaad ciyaarta waxay adkaadeen 104 ciyaarood waxay baraajay galeen 12 ciyaarood markii ugu dambeysay oo Liverpool ay dhacday iyagoo gurigooda gool ku hogaamiyay ciyaarta waliba Anfield lagu ciyaarayo Premier League guna hayahay oo gool ay qaybtood ku hormaraan Liverpool mar laga badin tan iyo 2009 markaasna Arsenal ayaa ka adkaatay tan iyo markaas marka Liverpool waa 116 ciyaarood oo ay iminku unbeaten marayaan markii gurigooda gool ku hormaraan marka nimankan gool ku hormar qaybta koowaad ka jiifiya oo Anfield lagu ciyaarayo maxay ilay ma laga badin karayo super Van Dijk baan arkaya runtiyo kanu wallahi ninkii baa soo laabtay xoog weyniya soo laabtay idinka kale mucaarado ninka hadad leedin Lukaku qaadanad leedin idinka kale waa laakiin ninkan oo fit ah Liverpool waxa laga qaban karo waa ku harowsanaya ka rub macnu maanta uu kugu diganaya maanta su'aal marat su'aal waalayo madaxu ka galayaaba waa dadka yasaano ku tiimbina waa ka dheeraysan ku fiirin adoo dhanba cawigar bad la muuqanaysa Van Dijk oo Liverpool ugu ciyaaray Anfield Liverpool marna laga badin ciyaar Premier League 48 ciyaarood uu ku ciyaaray 43 bay badisay kooxdiisu 5 baray jabal la galay xilli mataqana kooxdiisu ay 3 ciyaaroodna shabaqooda ilaashanayeen marka ninkan oo soo laabtay Liverpool waxa laga qaban karayo midda kale taasimikas mid kale leeyahay khatar weeyaan ya Robertson wiilka banaanka barihan taasimikas keedu isaga jiray mooyaane Robo ayaa booskaas kale laakiin taasimikas inay caadi maahan wala Elliot kunin khatar badan weeyaan isagu qudhiisay ya wara Liverpool balay bay noqotay Ali Somark wuxuu badbaadinay maanta wala ninkii markii waa soo laabteen walla ninkii isku kufo walla idinka le waay horta waxa weeyaan kooxu qaar kufo waa kufeene kooxda hadda ku darsadaan magaalkooda duurkooda galan shaqo kuma horyaalay laakiin inta wali aan kufin sida Chelsea oo kale iyo Man United haddaad isku kuftaan idinka le way maxay Liverpool sanadkan way dheereynaysaa inta waa Redis oo nicmadeedu anigu aan haysan kari waayay galabtee wararka samaxa ugu weyn Real Madrid 145 milyan bay kula wareegaysaa Kylian Mbappe ilaa daqiiqad ay ka dhimantaa kala iibsigu ciyaartooyna sanadkan waxay doonayaan inay Mbappe gacanta ku dhigaan Mbappe 10 bilood baa heshiiskiisa kooxda kubadda cagta Faransiiska ugu harsanay PSG ninkan ayaa waxa si weyn la xirinaya Real Madrid Real ayaa la sheegay caawa in ugu yaraan
suuqan ay doonaysa inay kula wareegto waliba ilaa iyo 30 bisha Agoosto يا ريال isku day doonta isku day weyn oo kula wareegi doonta Kylian Benzema ayaana si xiriira telefoon ugu wacay Kylian Mbappe oo ku qalqaalinaya inuu yimaado Real Madrid oo dhahay war halka ka soo tag ima Messi wacdi maxad meesha qabanaysa blokeeta taay meesha war meesha ka soo carbu le meesha bad Ronaldo ka noqonaysa gaabka lagu korkeen maxad meesha ka haynaysa nin gaabku uu korkeen waa ku dili ya ninkii Messi uu korkeensaday nin ku dilay waa ya soo maqli jirbal rooriyahay ninkii walaasha gagay ya oo yiri walaashan guursana ninkii yiri gagay waa ku diligaas oo badii jirin waa ku dilan nimankaas waryahay ninkii Messi ku korkeenay waryaha gaabkaas uu keenay maxad meesha ku yaala iska ordaayo ninkaas xirfadda meesha kan maxaa ku yaala meesha war meesha soo rabo leeyahay Benzema ayaa sida rasmi la sheegaya inuu yahay ninka qalqaalinay Mbappe inuu Madrid yimaado Real la warkeedu waa cad yahay daqiiqada ugu dambeysay kaliibs ugu ciyaarto sanadka kan waxay doonayaan ilaa inta ka dhim bishan waxa ka harsan ugu yaraan maalmaha yar hadda kulatan baa la maraya suuqa ila sidoo suuq xirmaya Real isku day doonta qiimo dhan 112 milyan ilaa iyo 145 milyan ku loo ciyaarto Kylian Mbappe marka heshiiska kan waa heshiis macquul ay tahay si shooga sanadka inuu dhaco oo Kylian Madrid ay qaadato waa laga yaabaa Real isku day ugu weynaabay wadal wali runtiyo marka warka Real Madrid ku aadan al dhooya maahan al shooy maahan warka kanu waa serious Real Kylian sanadka la wareegi karto ayaa loo maleynaya intaanu kala iibsigu ciyaartooga xirmin Liverpool waxa loogu baaqaya in saxiix weyn ay ka sameeyaan kala iibsigu ciyaartooga intaanu kala iibsigu xirmin waxaana filkaas qabo Betty Crouch iyo Jay Cole oo laba ciyaaryahan hore ugu soo ciyaari jiray England iyo kubadda cagta Premier League waxay leeyihiin kooxu qaar sida Chelsea Man City iyo United aad baa la soo dhisay ugu yaraan wuxuu leeyahay kooxda Club waa in ciyaaryahan muhiim ay ku soo darsataa si ay sanadkan ugu dagaalmaan horyaalkooda Premier League inay markale ugu guuleystaan Liverpool hadaba ka muuqanaysa koox inaba caadi ahayn laakiin hadii hal kale saxiix weyn lagu soo daray bay leeyihiin Ibrahim Kanu tabis bay kaysteen sanadkan waxay leeyihiin waxba laga ma qaban doono mid kale Mascherano Allegri ayaa xaqiijiyay Ronaldo in uu yaani si joogi doono kooxda Juventus macalinka Cajusto wuxuu xaqiijiyay Masar lama joojin kooxdu si joogi doono oo aanu kooxda ka bixin wuxuuna sheegay war ku aadan Ronaldo ayaa baxaya biishi uu aadaya Kambalo uu aadaya Kanu uu aadaya wuxuu leeyahay warkaas waxba kama jiro Ronaldo mar intuu noo yimaado nama dhihin waan baxaya sanadkan xil laakiin la sheegay ciyaaryahanka in loo bandhigay kooxda Man City oo Man City leeyahay Man City Ronaldo idin hayna wakiilkiisu yiri leeyahay warkaas iyada uu jiro ayuu Allegri wuxuu leeyahay Ronaldo wuu sii joogay xil ciyaareedkan nagama codsan buu leeyahay inuu kooxda ka baxayo warar kale sidoo kale caaw waxa kamid ah Harry Kane ayaa isna la safri doona kooxda Tottenham ee maalinta bari la ciyaaraysa kooxda Wolves waana markii uu horeysay ninkan uu u ciyaari doono kooxdan tan markii ay bilaabatay sheekada ah ninkan uu doonay Man City ku biro waxa laga filayaa ninkan uu kaydka ku soo bilaaban doono ciyaartan ama in lagu soo bilaabo ayaa la filayay laakiin ugu dambeyntii Kane oo barihii ugu dambeeyay aan u ciyaarin kooxdan ayaa bari Wolves ciyaarteeda ciyaari doona baa leeyahay balse ogow Kane wali go'aankiisa waa sidii wuxuuna sugayaa ilaa ay suuqa inta ka xirmayo inuu City ku biiro buu sugayaa laakiin ugu dambeyntii ciyaaryahanku toddobaadkan uu howlgalayaayo wixii City ay keentay waan arki doona saacadaha ugu dambeeya balse Kane marna ma fududaan doono arkiisa haddii ay mataqaanad dhacdaan City inaad Kane gacanta ku heshaan shib iska dhaw waa nasiibsateen Kane kaas gaal weyn waa kaas war rafaada maayni kaas suuq lagu qaada karo waan arki doonaa kulay Guardiola shil wuxuu mataqaana istir suuq ma dhamaan waxba meesha ka jira laga yaabay in wax jiri karaan laakiin ciidaas madax adeeg waa ciyaaraha waxa kamid ah Chelsea waxa leeyahay dalabkii labaad uu cili doonaan kooxda Sevilla waxaan isku dayeen intaan kala isugu ciyaarto wixii inay la sixdaan ciyaartooyga Julius Kounde sidoo kale Romano wuxuu leeyahay waxay hataa Chelsea doonaysaa Saul labada ciyaaryahan ee Atletico iyo Sevilla u ciyaara Chelsea waxay isku day doontaa ilaa daqiiqada ugu dambaysa inay labadaas ciyaaryahan kooxdu ku soo daraan wareey Chelsea sanadka ay ugu dhawdo maar loo mehelay Milan waxay maanta soo bandhigtay ciyaaryahanka Florenzi ayaanta wad ogeydeen Florencio inuu ugu dhacwad ogeydeen ninkan iska soo Florencianaya ama lagu dhahdaan istirmar maadaama aan newska ku sheegayo maalin kasta Florenzi ugu dambeeyay uu yimaadaya watan xal ku lahaa Florenzi dad la soo bandhigo bari habensan waana kaya marka waxa weeyaan Florenzi ugu dambeeyay Milan uu yimaaday ciyaaryahanku ayaana sheegay in uu Milan ka doortay kooxo kale dibadda ah maxay Milan waxay doonaysaa leeyahay in ka badan inta kooxo kale ay doonayaan Maldini baan ahaa wurninkii kooxda ugu qancinan ku soo biro Alessandro Florenzi Milan ayuu noqday waa ka idin muuqanaya ama buu kaga yimaaday kooxda Roma mid kale tababaraha biishi wuxuu xaqiijiyay Pochettino in Messi uu ciyaari doono ciyaarta isbuuca dambe ee ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Remis wayaan ya marka ciyaarta Remis buu ugu ciyaaraya buu marka ciyaarta xal soo dhamaatay 4-2 gool ayuu Messi isbuuca dambe ayuu qayb ka noqonay waxaan rajeynayaa uu leeyahay inuu kulkiis ugu horeeyay caalami uu kulka noo ciyaari doono waariyahay dadka waa dhibteen Messi idin leeyahay ilaa dadka Faransiiska riyo u maleeyaan naga daa wax ibil bariyay eed bay leeyihiin Messi lama soo wareegin war waa la soo wareegni hay garoonka u aragnay leeyahay hadii Messi la soo wareegnay bal ugu dambeyntii arkaan baa laga yaabay xilli Messi uu ku laabtay Barcelona hay
وحمال حاليي نو ميسي وحي كلو ماشي كيالو سو خلصنايا iyo maadaama isbuucan aan lagu darin ciyaartii Brest xalay in lagu darin Lionel Messi wuxuu dib ugu laabtay Barcelona gurigiisa uu ku laabtay runtii xogaa yar arimo yar oo meesha ka soo xalisinay baa leeyahay laakiin ma ahan inuu ninka ka yaani Barcelona dib ugu ciyaari doono jabtarkaas uu soo xirmay mid kale Lionel Messi Barcelona uu ka tagay ya Barcelona rigoor u tuuri doono xilli ciyaareedkan ma Philippe Coutinho horta ninkaas waa nin aad u khatar badan boqolkiiba boqol rigooradiisu ay khatar badan tahay laakiin dhaawac la weeyaan balse waa kii ciyaaryahan kale ee Barcelona sanadkan rigoor u tuuri doona Lionel Messi Barcelona sanadka kan waxaan xataa dhaxalkiisi waxa qayb ka ah goolashiisi in cid keenta la helaa sidoo kale penaltigiisi cid cimaamada oo shabaq u leeyahay ayaa la doonayaa Barca waxay istaa dhowr deeq oo kala duwan Griezmann Memphis Depay Coutinho Aguero iyo Braithwaite Griezmann waa nin aad u fiican maxaa yeelay 64% ayuu goolashu rigoor u bedela dhaliyaa 28 rigoor uu turtay Griezmann 8 kamid ayuu shabaq u dhigay Depay oo kale isaguna percentagekiisu waxa weeyaan 75% ayuu dhaliyaa maxaa yeelay 9 rigoor Depay uu qaatay 2 kamid ayuu dhaliyay Aguero oo kale wuxuu percentagekiisu yahay isagana 77% oo 48 rigoor ayuu dhaliyay ninka kan Aguero 62 rigoor uu qaatay hatta Martin Braithwaite ya isagu qudhiisa 14 rigoor uu qaatay ya sagaal kamid ayuu ninkan u dhaliyay runtii 65% ayuu rigoor ku fiican isagu qudhiisa midda kalena Philippe Coutinho qudhiisa waa nin aad u fiican 10 rigoor ayuu tuuray 10 rigoor waa dhaliyay ya balse waxaan arki doonaa ninka kan haduu sanadka rigoor u qaado doonay hadii dhaawiciisu u diidi doonto hatta Frank de Jong waa nin ku fiican 100% rigooradu laakiin laba rigoor bis wiliga isaguna qaatay marka sanadka kan Barcelona cid rigoor u tuuri doontana waa isha wax lagu hayo Filimangona waxay qarka u saaran tahay qaadashada ciyaartoyga David Luiz odagu baryahan koox ma haysto Arsenal uu ka tagay Filimango ayaa laga yaabaa leeyahay in kan uu ku biro xiriir la sameynaysa madaxweynaheedu la fariistay Tottenham waxa la sheegayaa in Donkay Ndombele ay siiso kooxda Juventus kaga bedelato imkaani ninka la yiraahdo West Ham Kenny Mareykanka halka laga beer ay leedahay wariyaha inaga tulisidin siinayne Spurs ay madnasiisan in Dombele xooga badan ee Maxamed Salah yaani wax badan ma sameyn Galatasaray difaacoodii Marco waa ninka isbuuciiru aan ka yaabnay 8 ciyaar baa la ganaaxay waa ninka saaxiibkiisa ku kooxdiyiin garaacay oo ninka kan oo ciyaarey kooxda Galatasaray Marco oo nin madow ayaa feer ku dalandaray isla saaxiibkiisa ku kooxdiyiin ee reer Turki Kerem Aktürkoğlu wareer uglo iyo hakan huglo iyo joglo ciidahoodii ma isku tataawanaysa wariyaan ordaga ku arkin dadkoodii wadankoodii ku ciyaaraysiin aad wadankoodii ku dhaxfeeraysiin Afrika wadankiina aad fiiqateen inaad wadankiina fiiqateen waxaad rabtaan adduunka inaad fiiqataan baad doonaysaan dadka wadankooda ku garaacdaan nin waxaad arkaysaa wadankiisa lagu feerayo Afrika way caafimaad taama nabadgelyo